madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan oo sheegay in rasmi uu saxadaga Songoy iskuulka hoose dhexe oo wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku hirgeliyay duleedka magaalada Baydhabo kaasoo ka bardan ardayda ka jiraan kaamka magaalada Baydhabo walibana kaalan ku jisay iskuulkaasi hay'adda Consena walibana iskuulkaasi ayaa tadhikadaasay ilaa 700 arday oo danyare oo ka jira kaamamkaasi duleedka magaalada Baydhabo kiyaala mashruuc way boo iyada maalgeliyo midowga Yurub wayna ku dareeray afgooy iyo Baydhabo sida iskoolo weyn ay hadda diyaarin afgooy iyo wada jireedisi inta la baa marka 20 macallin ayaa aawiyo oo afar kumadeeyeen gabrayin ilin wiilal gudilay training la aawiyo qalabka dhan waxbarasho uniformka daqaara la sii qaarna indhaminiyo Abdullahi Ali Watiin gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo ku hadalay iskuulkan ku hirgeliyay duleedka magaalada Baydhabo oo wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya soo kuma hanay dadaalada walbarasho ee kuwada wasaaradda deegaanada koonfur galbeed ismayba usulahay lama dhindamay hoggiyintaba taasoo laga tarjumay in may boogay dadkan oo barakacayaasha oo may batawar doon hay'ad oo awoodna in walbarasho isku dhiibi karo may baahan in helan access oo may baahan walbarasho may baahan helan taasoo wasaaradda walbarasho may baahan curriculum iyo magaalada nidaamka waxbarashada may baahan kaalan fayl kujisiti meedanka ma hadnagaan may hay'adda Consent iyo European Union may baahan fanka may baahan tadhiibay oo barnaamijka may baahan ADC laga dhisay kan may baahan dhiibeen si may baahan kulli wakiilka hay'adda Consent in sheegay wasiirka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ee madaxweynaha ku warami muhiimadda soo leeyahay ardayda danyarta walka baraas iskuulka uu soo kuma hanagi hay'adda garanti ku jeesiti iskuulkaasi dhisawjay isoo wasiirku sheegay in iskuulu beeslaan kale ku hirgeli doonaan kaamka magaalada Baydhabo meelahay hakuna anoo qeyb gali intii iskuulkiin furteedan kama santaa ana ka dhaayana iskuulkun saadiib adaragahayd dadkii bulshada anka liidatiya walka baradahayd oo ilaa la fado kun arday 700 arday tadhikadayaan ilaa talagalkan ilaa kun ani walka baradan kan shileysata wayba ma hadaasna inta badan isku leeyahay Consent oo taageertay wasaaradda waxbarasho ahaan ani una hergelina bulshada anka baahanayti una deersin waxbarashadii antii taasnin suurta galideedan kama hasanyin sidaadii adaragahayd bulshada way la rajaray inta badan gibro noo wal baradayaan sidaadii adaragahayd madaxweyne dhamaan gibro anka badan hata kuriitiyo ku badan iskuulkuna geeka mayla kun shilin malku qaadahay ardaydun si beeslaan ay walka baradayaan macallimiintiina lacagdiyo wal biyahay hay'adan oo dhiibahayta dhamaan walaagay buugaag qalab baahnaayeen wal dhameystiri saasoo kale geeka su ku muuqato uniform laantiin uniform joogto wal anturahay markan dhamaantii wal siyahay maadaama bulshada awoodna daantii oo yaalsho dhoon uniform in wada gadan dhamaan wal anturahay markan dhamaan adeegyadii oo baahnaayeen Shariif Xasan sheegay in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iswiin kuma hanay hay'adda kaalanti ku jeesiti intii iskuul danyarta si bilaash walan ku bardaan la hirgeli duleedka magaalada Baydhabo oo bulshada ka baaqay iyo ilaalsan iskuulkan awlaadii walka baradayaan dowladdan laha ay hato la kabsado hay inta baruntii walbana qobadan eedan ka maadnaga iyo hay'adda fuliida Consent naftiina runtii in maadnaga walbana wadanku ku qobadan ini walbadan kala qobadan runtii iyadana ka baaqana ilaahay insha Allah dadweynaha qaybasha shil duwan nabadda horta waleedan faylo bal nabadda ka wada shaqeeyay in walbarashada iftiin waaye walbarasho laana mugdo waaye laakiin tun dhalinyaro tun ayaale tun awlaade geek aftiin biyo hayo oo mugdo ku biyo hayo runtii wal faylo qabadi iyadan ka maadnagaana in wasaaradda gaar ahaan wasiirka dadaalka sheeyna runtii suuna ka maadnagaana gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo yoona kul hirahayna dadaalsho wal alla waliba ummaduntan horumarsha ay ku shaqeeyaan iyadan ka maadsiin en dadka awlaadiyo xaaladan iyo waqtoon la ka jar in wal baradan naftiyo go'aansaday awlaadiyo iskoolkan dirahay naftiyoon eedan ka maasinin awlaadun yar yaro wal barashada tan surugna wali in rajeeyay wal barasho iyo horumar iyo cilmo oo cilmo naafac inay baradan oo ilaahay ka anfacaya ilaahay ku toogana iyo islaamnimada oo haysadaa bidin leel kariim marka eedeeda ma sintin iskoolkan wali balanaha guulan rajeeyana inay dad badan hasaara wali waa warshad waaye warshad ummaddan ku faa'iideyso walbadan la ku saara ummado dalkan iyo dadkan iyo diintan anfacaas in iskoolkan la ku saarayaan rajeeyana in alla intii xoolo galiidi ama fikir galiidi ama waqti galiidi oo wasaaradda iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo booliiska iyo dadka nabadda ku shaqeeya ilaahay nabad sheeno kore dhamaantii oo mahadnagaana nabadlaantay walba malweelo kore ciidamada
ciidan ka mahadnagaan ama soomanka horeyta militariga booliiska nabad sugidda aan koonfur galbeed dadweynaha nabadda jeel oo nabadda ka shaqeeyo hay marka wali isfaraanana in nabadda la kuwa shaqeeyo macallimiinta wali rajeeyay guulaan rajeeyay laakiin tun dad geekan tasurun horumarsho iyo iftiinsho ka shaqeeyo hay ilaahayna guulay doon iskuulku wuxuu isku mid yahay iskuulada wasaaradda walbarashada sida bilaashka walanka barada ku hirgeliyay gudaha magaalada Baydhabo.